السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها مسلمين تميلوا البوجوكتين الله يدين كرامي إله إذن شرف يا رب العالمين. ولا ليال مالين إحداثا أنيقو مساجد كتجينيو أيا وحائي مد نين أخيار ورنهانتي آد آن متقانا أوغه لي قابك ويوجد بي أرنتنا نجي شيء دونه. ولا ليال نينكا وحيقول هذي صلاة إنتانا قلين أيو إسلامي. السلام عليكم شيخ سيرتهاي الحمد لله في عنتهاي الحمد لله بندهاي. wuxuu igu yiraahday sheekhow sodohdayba iga xanuunsane igu soo ducee. Allahu akbar. walaalayaal ereyga ma ila dareensantiin waxaan dareemayo. wuxuu yiraahday sheekhow sodohdayda ayaa iga xanuunsan way iga xanuunsantahay aniga way macna way iga xanuunsantahay igu soo ducee sheekh. Allahu akbar. jazakallahu khayr baa salaada markii laga baxayna waan u duceeyay. ducada uu iga dalbaday arintan waxaan kala soo baxaynaa walaalayaal. awalan ninka nin ehelkiisa u fiican inuu yahay, nin xaajiyadiisa jecel inuu yahay, nin sodohdiis jecel inuu yahay, nin familkiisa jecel inuu yahay, nin akhlaaq leh inuu yahay. raggeena Soomaaliyeedna walaalaha saasaa laga rabaa sidaasoo kale inay ehelkooda u jecel yihiin, ay mataqaanaa sodohdooda u jecel yihiin, oo mataqaanaa gurigooda uu saas yahay oo nicmooyinkaas ay taalo. walaalayaal dhibka jiro waxaan aragnaa dad badan oo ka cabanayo, يعني dumar badan oo ka cabanaya raggii iyo rag badan oo dumar ka cabanaya. run ahaantii waan aragnay labadaba. haddaan dhahna raggaa fiicanna dumarkaa xanaaqayo, haddaan dhahna dumarkaa fiicanna raggaa xanaaqayo. laakiin labada qofba inay isku fiicnaadaan, inay isku noqdaan nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sidoo uu ahaa Aisha radiyallahu anha iyo zawjaadkiisii kale radiyallahu anhum wa ardaahum. walaalayaal qofka muslimka ah ama zawjka ah waxaa laga doonayaa gurigiisa inuu raaxo ku helo, gurigiisa inuu deganaansho ku helo. يعني انتو guriga ka bixi lahaa oo meelaha makhaayadaha iyo mataqaana meelaha tagi lahaa waxa fiican gurigiisa inuu ku helo raaxo deganaansho, guriga markuu u soo socdo inuu ku farxo. taana waxa keeni karto inay zawjadiisa arinta kala qayb qaadato, gurigeeda ay janno ka dhigto, gurigeeda ay raaxo ka dhigto, gurigeeda markuu soo galo zawjkeeda inuu ku farxo, iyadana ay ku faraxdo, asagana uu ku farxo. taasa mataqaana deganaansho lagu helaa. waxaan aragnay annaga kadalik dadku markii arooska la imanayo labada ehel ما شاء الله إهلكي زوجك إيه إهلكي زوجدا لبضا بوا لسكو إيمانيا ولسكو همبليدين همبليو إلهي عروها إذنسي ولو دعينيا ولو كال دقاقيا ما ننتو بروبليم دعنا كما كليجيت بمسايدك إيمانيسو أما شيخي سو وعيسو نينك كليجيس بامرمن إيمانيو ومسايدك إيمانيو أما علومدي سو وعيو ودها يدباتدا سايهيستو إهلكي ددكي ما ننتي أروسكا كسو قيب قالي لما هيو. فبالتالي ولا لا وحنا لقربها مركي مشاكل إيه بروبليم دعدو أنت أنا هرت لو قد بين إن ما تقانا إيه اللي ما لو حليو ست ترتيب لو حليو قولي أونا مشاكل كجير الملك. لكن وحال إسكاك بهني هاي إن دول قاد لي ماذا نينك الرجاء وإلهي رجل ماذا كسي الرجال قوامون على النساء وإلهي كسي إن تقفتها إلهي سبحانه وتعالى أضمان أنت أتكو قادة تيسي شرف له إن دورتد od inaad ilaalisid, od inaad mataqaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu rifqan bil qawaariir una xariista nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrukum li ahli. anaga waxa laga yaabaa saaxiib qofka inuu saaxiibkiis iyo dadkii uu la joogay iyo jamaacadiisa u fiican yahay, laakiin guriga markuu soo galo inuu mataqaana xanaaqo ama mataqaana inuu shaydaan uu ka faa'iideysto. gabadhiina kadalik iyadoo iska caraysan guriga ay mataqaana joogto oo ninkii ayna u tabassumeyn, ninkiina kadalik. marka labada qof waxaa laga rabaa gurigooda walaalayaal inaan ka dhigno guri janno ah. nabigeena wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam khayrukum li ahli. ninkiina idinku fiican waa ka ehelkiisa u fiican, zawjadiisa u fiican, caruurtiisa u fiican, ilmihii markuu guriga soo galay ay ku farxaan, hooyadii ay ku farxaan, aabihii hooyadii uu ku farxo, hooyadii aabaha ay ku farxdo. dumarkeenana ayna dhageysan mataqaana dumarka kale oo mataqaan rubama laga yaabo gurigeeda inay mataqaana ka dhaawacaan ama ay dhahaan ma sha Allah waxa ku jirtid saasoo kale. in mataqaana dadka khayrku ay dhageystaan, in la iska ilaaliyo, inay gabadhu mataqaana guriga markay joogto hadday meel tagay zawjkeeda ka idan qaadato, hadduu asagana mataqaana meel ku maqan yahay soo sheego. وهكذا guriga uu ka dhaco guri dad isjecel ee la noqdo, guri ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay, nabiga uu jecel yahay, ummadda ay jeceshahay uu noqdo. taasaa walaalayaalow insha allahu tabaaraka wa tacaala guryaheena ay ku noqonayaan guryo degan. ilaahay guryaheena guryihii nabi Muhammad Allah ka dhigo, caruurteena Allah noo wanaajiyo, xaasaskeena Allah noo wanaajiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala dad ilaahay ka cabsada ha naga dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala guryaheena guryo markaan soo galno guryo farxad leh Allah ka dhiga ya rabbal caalamiin, guryo aan ku faraxno Allah ka dhiga ya rabbal caalamiin wa arhamar raahimiin. guryihii barbaleeyay iyo dhibaatooyinka jirana insha Allah إلهي سبحانه وتعالى قريها الله إصلاحيه. إلهي أبدكينا هنو بركيه، أولادنا هنو بركيه. إلهي سبحانه وتعالى قريهنا هنو بركيه، ودكينا هنو بركيه. إذن كان الله إذن كراميه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.